shaqadiisa wanaagsan awgeed maamulaha ayaa shaqo uga helay barkada dabaasha. Xitaa waxaa loo ogolaaday inuu si bilaash ah u dabaasho shaqada kadib. Wuxuu ka faa'iidaystay fursadan si uu u barto dabaasha. Intaa waxaa dheer wuxuu dhalo khamri ah kaga bedeshay nin hoylaawe ah baaskiil. Sidaas ayuu ku sii watay jimicsiga iyo ishagaajinta naftiisa. Dabaasha, orodka iyo baaskiil wadiddu waxay noqdeen qayb noloshiisa ka mid ah. Si uu u tijaabiyo natiijada tababarkiisa muddadaas, wuxuu iska diiwaan geliyey tartanka loo yaqaan triathlon. Wuxuu dabaalanayay 700 oo mitir, ordayeyna 5 kiiloomitir, sidoo kale baaskiil ku socday 20 kiiloomitir. Laakiin markii uu kusoo gaadhay xariiqda dhamaadka, cidina halkaas kuma jirin. Guusha iyo guuldaradu hadda muhiim uma ahayn, sababtoo ah markii ugu horreysay ayuu naftiisa ka adkaaday. Maalintan war xun ayaa soo yeeray. Saaxiibtiis ayaa la geeyey qaybta daryeelka degdega ah. Isagoo eegaya saaxiibtiis oo sariirta saaran, qalbigiisa waxaa buuriyey qoomamo. Inta uusan bixin wuxuu ka dhunkaday fooda. Markii uu ka soo baxayay qolkii, wuxuu arkay gabadhiisii quruxda badnayd. Ninkii wuxuu rabay inuu la hadlo, laakiin waxaa hor istaagay aabbaha saaxiibtiis. Ninkii wuu istaagay isagoo indhihiisu ay madoobaadeen. wuxuu og yahay inuusan weli u qalmin inuu aabe noqdo. dhowr maalmood kadib saaxiibtiis way geeriyootay. wixii intaas ka dambeeyey, ninku murugadiisii wuxuu u bedelay awood. wuxuu si kasii adag u tababaranayay maalin kasta. wuxuu ka tegay xaruntii dhaqan celinta, wuxuuna ka qayb galay tartamo kala duwan. kuma uusan guulaysan oo keliya horyaalo iyo tartamo heer gobol ah, laakiin wuxuu sidoo kale jebiyey rikoorka Yurub ee tartanka triathlon. xitaa wuxuu helay martiqaad uu kaga qayb galo tartanka triathlonka adduunka. tani waxay mar kale caddaysay awooddiisa. sanad kasta maalinta dhalashada saaxiibtiis, ninku wuu soo booqan jiray.